dhammaanteen wax badan ayaan kala soconnaa lacagta ay qaataan tababarayaasha iyo xidigaha kubadda cagtuba sababtoo ah waxaynu ognahay mushaar ahaan xidiga ugu sarreeya iyo kan ugu hooseeyaba laakiin wax badan ayaa inaga qarsoon marka loo eego inaan wax ka ogaano lacagta ay qaataan garsoorayaashu haddaba muuqaalkeena maanta waxaynu ku eegi doonaa waa imise lacagta ay qaataan garsoorayaasha horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League garsoorayaasha Premier League waa kuwa kumida dadka ugu shaqada badan ee kubadda cagta iyagoo ilbiriqsi inka yar ku go'aamiya natiijada kulan ciyaareed laakiin waa imise lacagta ay qaataan waa kuma garsooraha lacagta ugu badan la siiyo ee horyaalkan ayaan muuqaalkan ku falaqayn doonaa haddii ay ku tahay marka ay kuugu horeysay waxaan ka codsanayaa inaad muuqaalka like saarto si lamida aad follow ina soo dhahdo si aad u hesho sheekooyinka aan halkan soo gelino inkastoo ay eedeymo badan la kulmeen haddana garsoorayaasha Premier League waxay qaataan lacag aad uga yar marka loo eego ciyaartoyda iyo tababarayaasha garsoorayaasha Premier League waxay sanadkii qaataan mushaar u dhaxeeya 70,000 ilaa 200,000 oo gini sida ay shaacisay Sport TV waxa intaas u dheer lacag dhiiri ah oo la siiyo kulan walba oo ay qaataan garsoorayaasha dhexe waxaana kulan walba ay qaataan 1,500 oo gini halka caawiyaasha garsoorayaasha iyo garsoorayaasha adeegsada faa ay qaataan kulan walba 850 gini oo dhiiri ah mushaarkooda sanadlaha ah Michael Dean oo ka fariisay shaqada garsooraha dhexe dhamaadkii xilli ciyaareedkii hore ayaa ahaa garsooraha lacagta ugu badan qaata horyaalka Premier League waxaana noqday garsooraha faa ee kulamada Premier League kadib markii uu ku howlgabay garsooridda kulamada kubadda cagta Paris ay samaysay Sport ayaa lagu ogaaday in Michael Dean uu sanadkii mushaar ahaan u qaadan jiray 200,000 oo gini waxaana uu dheeri ahayd lacagta kulan walba oo ku garsooro taa oo dheeri ka ah mushaarka sanadlaha ah taa waxay muujinaysaa inay aad uga yar tahay lacagta ay qaataan isbuucii xitaa garsoorayaashu marka loo eego tan xidigaha kubadda cagta laga yaabee in 300 ilaa 400,000 oo gini ay xidigaha kubadda cagtu isbuuc ku qaataan laakiin garsooraha ugu lacagta badan uu Michael Dean waxa uu sanadkii ku qaataa 200,000 oo gini shaqada garsoorayaasha waa inay markaad eegto dhaqaajiyaan sharciga ciyaartoyda iyo in ay kontroolaan ciyaarta iyo in warbixinta ciyaarta ku saabsan ay u gudbiyaan maamulka ciyaaraha xilli ciyaareedkan waxa kulamada horyaalka waddanka Ingiriiska ee Premier League garsooraya 16 garsoore oo qabanaya 380 kulan waxayna kala yihiin Simon Hooper, Robert Jones, Michael Olivier, Anthony Taylor, Paul Tierney, Stuart Atwell, Peter Bocks, John Brooks, David Cohn, Darren Egland, Jared Getter, Tony Hudson, Andre Mellin, Andre Mirror, Gareth Bowson iyo Graham Stott kuwaasi waa 16 garsoore ee dhaxdhaxaadin doona horyaalka waddanka Ingiriiska waxayna qaataan lacag aad u yar marka loo eego mushaarka ay qaataan xidigaha kubadda cagta